xubno ka socday gudida doorashooyinka heer qaran ee Soomaaliland ayaa maanta soo gaaray magaalada madaxda gobolka Sanaag Ceerigaabo. Ujeedada safarka komishanka doorashooyinka ayaa la xidhiidha gogol xaadida dhaqaajinta howlaha qaybinta kaararka codbixiyaha ee dhawaan la filayo inay ka bilaabanto gobolka Sanaag, waxaana xubnahan oo duleedka magaalada Ceerigaabo ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiinta komishanka u qaabilsan gobolka Sanaag ayaa waxa ugu horeyn goobtii soo dhaweynta ka hadlay gudoomiyaha komishanka ee gobolka Sanaag Axmed Cali Biixi iyo maayir ku-xigeenka degmada Ceerigaabo Saalax Ismaaciil Cabaase. maanta waxaan soo gaaray guddiga komishanka doorashooyinka qaranka aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan leenahay gobolku waa gobolkiinii ku soo dhawaada reer Sanaag ahaan sida aynu la wada socono waxa bilaabmaysa kaadh qaybintii hawsha u yimaadeen sidii ay u sii dardargelin lahaayeen kaadh qaybinta ugu soo aadan muddada dhow waxaan leeyahay reer Sanaag goobii waanu soo wada marnay ay gelina waa qabtaan marka la inoo yimaado inaan gabgableynine aan guntiga dhisis kaga dhigno hadii la inaga badiyay kaadh qaadashadii oo magaranaysa codkii la inaga batay yaan la inaga qaadanin la inaga badin inaynu kaadhka moogtahay aan si fiican u qaadano taa aynu gobolada kula tirsanno kaadhkan si fiican u qaadano insha Allah. waxaan jeclahay inaan hal qodob u mariyo dadweynaha reer Ceerigaabo halkan muddo badan baynu soo galnay diiwaangelintii baynu soo galnay maanta waxaanu qaadanaynaa kaadhkii cid kasta oo kaadhka hore diiwaangelinta ku jirtay waxa laga rabaa maanta inay goobteedii ka qaadato kaadhkii oo si xor iyo xalaal ah ugu codeyso ay qaadato kaadhkeedii. ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland Injineer Cabdulqaadir Liimaan Warsame oo bulshada reer Sanaag ugu baaqay inay u diyaar garoobaan qaadashada kaadhka codbixinta ee dhawaan ka bilaabmi doona gobolka Sanaag. hadda assessmentkii ugu dambeeyay diyaar garowgii baanu eegaynaa halka howluhu u marayaan komishanka gobolka waxaanu dib ugu noqon doonaa maxayde Hargeysa waxaanu soo noqon doonaa 29 bisha 29 bishan July taasoo aynu joogi doono 23 ama bil dhanba aanu joogi doono gobolka oo bisha hawluhu socdaan insha Allah bismillaahi kariim waxaynu bilaami doonaa oo daafurka kaadh qaybintu uu ku dhici doonaa maalin miisaan oo ay bishu tahay 10 August 11 August oo maalin Jimcaana qalabka iyo agabka iyo shaqaalaha iyo gaadiidka ayaynu goobihii u kala diri doonaa goobahaynu u kala diraynaa waa 173 goobood oo ay ka kooban tahay gobolka Sanaag maalinta Sabtida ah ee bishu tahay 12 Augustna waxaynu bilaami doonaa kaadhka ugu horeeyay 6 subaxnimo inaynu bixino waxaanu ku boorinaynaa muwaadiniintii isdiiwaan galiyay inay kaadhkii qaataan waxaanu leenahay dadkaydii iman doona dawladii baa idin iman xisbiyadii baa idin iman wax olola ah lama ogola wax olola ah mar labaad iyo mar saddexaad baan ku celinaynaa olola xisbiyaysan lama ogola olola beelaysan lama ogola qofkaanu ku aragnana waanu xidhaynaa. Yuusuf Cabdi Xasan Cadde, telefishinka caalamiga Universal magaalada Ceerigaabo.